السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحنا كنمي بوهودلي reer Buuhoodlaan ay waliba dhaalgalool meesha la yiraahdo ama sagalool leeyba ayaanu ka nimi ciidankani ka soo kacay ciidankani waa ciidan Madhibaan Garaada waxay u soo kaceen halganka laascaanood lagula jiro nimanka argagixisada Islam argagixisada annaga kaasa noo dhaxaa ilaa xataa qayuun habad baa noo dhaxa halkaasaanu kala dhacaynaa annagu waxaanu nahay SSC Soomaaliya Sanaag iyo Cayn waxaana la yiraahdaa Madhibaan waxaanu nahay nimanka halkan tuban waxaanu nahay reer galooley waligeena waxaanu ahayn SSC Soomaaliya Sanaag iyo Cayn baanu ahayn hadda ka hor markii khaatuba jirtay gabayadan tirey baa aniga qoran oo Soomaaliland aan ku diiday Soomaaliland oo aan lahaa majeerteen wuu tashaday marraba ma dhaqaaqayaan hawiye xamar buu mulkiyay isaaq waa ma tadoox macfalka Hargeysa tahay diyaaradda meesha suran ninkii aan garan micleen markaa loo meeriyaa umriga moogtiin dhulbaanta umaanka waa hunguriga meel isku kuwii maatiya caruur baroomada marinayay meydkiina xabaalayay mashxaradii daba wadaan mooshinkay dhiganayeen miiskii wada hadalka yiil ninkii baashihii lagu maqolasay madaxa feed lagala dhacay waliba maag loogu daray waa muriga moogtiin Buuhoodlan maanta tagay Buuhoodle BM-ka mushaaxiyo mujaahidka saaran iyo madfaca tuutaha leh iyo salaaga ku meersan iyo baroonka maqayqan iyo magaalada bilicda iyo mashxaradii dumarka iyo garoonka la meeriyo silaada ka maarmo ilaaha mahadale macana khaatumada waa Ali Khaliif markuu Ali Khaliif haystay yay ahayd ilaahay naxariista jannaha siiyo ilaa bariga annagu Soomaaliland qalbaanu ahay inta dadku culuubin yaan halka xabad iska dhici jiray hadda tarakaasaan u haynaa hambada hadhay ina kaahin iyo ina koorena waa soo qabanaynaa hadda sarajiida hore laascaanood baan joognaa anaga kaasaan noo ballan habar isaaq iyo waxba la hadhay banaanka isu keen soo saaro annaga Madhibaan Garaad baan leeyahay Madhibaan Garaadina la yiraahdana soo hodimuu kala degaa Madhibaan annagu SSC baan la degnaa SSC baan quudiga qaaraan la nahay SSC baan la noolay Sool Sanaag iyo Cayn dhulbahanta wuxuu baxana wuxuu dilana waa dilaynaa wuxuu daayana waa deynayna annagu dhulbahantaanu la oodna annagu dhulbahantaan la degaana saasaan lagu ogeeyay wasalaam aniga waa Xamdi Xasan Samatar oo u dhashay magaalada Galooli ee gobolka Cayn waxaan maanta u sheegayaa gobolka Cayn iyo SSC iyo dhulbahante iyo gacaliga islaamka wixii maqlay waxaan u sheegayaa in aanu soo gurmanay oo aanu ku talagalay inaan la jihaadno nimanka Islaam waxaan joogaa furinta barta ugu horeysa laascaanood ayaan ka hadlayaa waxaan doonayaa inaan ku janno tagno Soomaaliland iyo isaaq asalaam anagu dhulbahantaan nahay sida gudoomiyuhu sheegay anagu dhulbahantaan nahay dhulbahanta wuxuu baxana ciiduu dilana waa dilayna ciiduu daayana waa daynayna bismillaahir rahmaanir rahiim ciidankan aad arkaysaan ee ku fayshan waa ciidanka beesha Madhibaan ee dagaalka kula jira jabhadda argagixisada Islam kuna dhimanaya wuxuuna ciidankani ka yimid gobolka Cayn deegaanada Galooley waxaanu leenahay wax laale wixii horay ugu jirayna waa ku jiraan jiidaha hore annaguna jiida horaan ku jiraa kuwa kale oo badanna way soo socdaan wayna imaanayaan wayna ku dhimanayaan horena way ugu dhinteen waxaanu leenahay nimankan Soomaalidiidka Islam dalka ay iskaga baxeen hadday ka bixinna cawaaqibkooda horena waa loo arkay haddeerna waa la arki doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh